Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in dunida ay wajahdo musiibo jiil sababtuna ay tahay iskuulada oo la xiray xilli uu ku faafay cudurka faafa ee coronavirus. Antonio waxa uu sheegay in ilaa iyo bartamaha bishan Luulyo ay xirnaayeen qaar ka mid ah 160 wadan iskuuladooda oo ay saameyn ku yeesheen in ka badan 1 bilyan oo arday ah halka ugu yaraan 40 milyan oo caruur ah ay seegeen dugsiyada xanaanada. Hadda waxaan wajahaynaa masiibo jiil taas oo baabi'in doonta awoodda aadanaha oo wiiqi karta 10 sano oo horumar ah kana sii dari karta sinaan la'aanta, ayuu yiri Antonio. Waxa uu intaas ku sii daray tani waxa ay ku timid in ka badan 250 milyan oo caruur ah oo horay ugu maqnaa dugsiyada ka hor masiibada iyo kaliya ruuxa ardayda dugsiyada sare ee wadamada soo koraya iyadoo ka tagaya xirfado aasaasi ah. In ka badan 18.28 milyan oo dad ah oo ku nool daafaha dunida ayaa laga helay cudurka faafa ee coronavirus-ka ilaa Talaadada. In ka badan 280,000 maalin gudahood. In ka badan 10.9 milyan ayaa soo kabsaday. In ka badan 693,000 ayaana dhintay. Cudurka coronavirus ayaa waxa uu saameyn ba'an ku yeeshay wadamo badan oo caalamka ah iyadoo